waxa ay la fadhisaa kusimaha garabka haweenka xisbiga UPD marka hore maama waxaan ku weydiinayaa maanta halka waxa sugan Imaan Cabdiraxmaan Odowaa khudbadiisa quruxda badneed Cabdiraxmaan Odowaa markaad u hadasho kan haween ahaan maxaad ka taqaanaa maxaasna kula talin lahayd khudbadiisa markaad dhageysatana waxa kaaga soo baxay bismillaahi raxmaani raxiim Odowaa horta waa wiil yar oo halyeeye intaan ka aqaanaan in sheegayaay Odowaa aad saas uma sii garanaynin horta xisbiga UPD ayuu ka tirsan yahay asoo xisbiga ka sii tirsan ayaan haddana waxaan ku garanayaa inuu horkal yahay oo aad u qabto shaqooyinka oo dadka aan waaweynka aan qaban karin asagoo dhalinyaro uu ka soo baxayo aniga waxaan inkastoo dadku ay keenaan guurka guur ayaan galmudug ku galay waan dhihi karaa inaan galmudug ka soo jeedo iyadoo haddana aan galmudug aan ka soo jeedo runtii Odowaa waxaan ku arkay karti aad u hufan xildhibaano fara badan ayaa ka soo baxay galmudug runtii Odowaa wuxuu qabtay ma qabanin xildhibaanada kale Odowaa waxaad arkaysaa maamada baadiye joogto maamada oo tuulooyinka joogo dadka biyaha haysanin dadka ceelasha inuu u qodo riig u geeyo dad curyaamiino waxaan arkay uu tartansiinayo uu gaariyaal u geynayo runtii Odowaa nin waxawaaye hufan oo dalka iyo dadka inuu u fiican yahay u dareemaysid waxaad u malaysaa galmudug ninka ka soo dhex bixi lahaa waxaa la yidhi ii sheegadiyeen marba qof baa soo curto runtii kelmad yaro oo diini ahaan ayaan ku darayaa reer galmudug ahaantooda waxaan u sheegayaa waagii hore waagii asxaabaha rasuulkeena subhanahu salawaatullahi alayhi ayaa wuxuu tagay nin caraabi ayuu u tagay runtii rasuulkan Allah ninkii abaal u galo rasuulka runtii wuu abaalgudi jiray asoo u abaalguday rasuulka ayaa wuxuu ku yiri ninkan aad markuu u sooray rasuulka wuxuu ku yiri niyo markuu Madiina igu imaadid aniga sidaad ii soortay si ka macaan aan ku casuumay marmad ii imaadid ninkii caraabiga ahaa ayaa wuxuu aaday Madiina rasuulka subhanahu salawaatullahi ayuu u tagay markaas wuxuu yiri wuu sooray markuu sooray rasuulkii ayaa wuxuu yiri ninkii caraabiga waa hankiisi wuxuu yiri wax alla waxa doontid sheego aan waan ku siinayaa sheegal dhahay marka ninkii reebaadiyo iska caraabi oo ahaa reebaadiyo ahaa hankiisi waxay noqotay naafka geela waa la koraa waa baadiye ila safarka lagu galaa iyo xoogaa rigi aan listo isiyeen runtii asxaabtii way fiiriyeen waxa la yiri waa hankiisu yiri marka rasuulka wuxuu yiri waa hankiisa waayo qofka caraabiga ee hankiisa waaye in 4 riyaad uu dhaqdo iyo neefka geela waa hankiisi runtii reer galmudug hanka Odowaa abaal nin kale waa la arkay reer galmudug laga rabaa abaalkiisa inay u gudaan aad u mahadsantahay